بسم الله الرحمن الرحيم عشركين halkan uu ka bilaabmaya ugu horreyn waxaan isweydiinaynaa course-kan PGP qofku markuu barto muxuu ka faa'iidi doonaa PGP sida caadiga waa routing protocols-ka ugu caansan dhanka internetka waana protocolku internetku isticmaalo ee ku saamaxaya in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta oo dhanbi ay dhexdoodana isku xidhmaan adduunkana ku xidhmaan adiga oo customerana sidoo kale adigu xidhantid marka waa protocol horta sida u faa'iidada badan marka imtixaan laga qaadayana waa mid ka mid ah protocolada ugu muhiimsan ee lagu weydiin karo marka training-ka aad baan u gaabiyay si qofku uu waqti kooban ugu baran karo haddii Ilaahay yiraahdo ugu horreyn waxaan isweydiinaynaa markaasi muxuu yahay border gateway protocol muxuu yahay border gateway protocol ama PGP muxuu yahay waa protocol mid ka mid ah protocolada ugu caansan ee ay isticmaalaan internet way isaga internetka ba tusaale loo soo qaata routing protocols kala way jiraan sida OSPF RIP iyo HRB ISIS way jiraan laakiin isagu wuxuu kaga duwan yahay maxuu yahay wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan isagu inuu yahay ka internetka ku dhisan yahay marka 2022 shirkadda Facebook ayaa waxa dhacday inay daqiiqada ma saacadayn hawada ka maqnayd waxa khalkhalay ama problem ku yimid PGP gooda marka gateway routing protocol kan loo yaqaan PGP waxa weeyaan waxaan ku define gareynaa inuu yahay waa routing protocol oo protocolada wax root gareeya ee loo isticmaalo user to exchange routing si data loo root gareeyo data si wada loogu sameeyo kaasi oo macnaheedu tahay in a reaching ability information between routers in a different autonomous number taasi oo awood u siinaysa in xogtaadii ka dhex dhici karto router kuwaasi oo ah autonomous number iyo kala duwan company kala duwan autonomous number mardoban ka hadli doona waa group of routers haday isku tagaan hal router iyo wax ka badan autonomous number u gaar ah loo sameeyo marka waa group ahaan ba loo sameeyaa marka markeeda inuu tagi doona autonomous number kaas oo internetka ku dhisan tusaale ahaan mid ka mid ah shirkadaha adigu isgaarsiinta aad u isticmaashid kaasi waxay leedahay one autonomous number ama waxay leeyahay two autonomous number shirkadaha kale adduunkuna saas oo kale marka autonomous number-yadaas isku tagtagaya marka waxay sameynayaan internet bay sameynayaan ama network ama data center-radii ay ku xidhayaan in other word si kale ayanu dhigi karnaa marka PGP is used to connect different networks PGP wuxuu isku xidhiidhiyaa networkyo kala duwan such as those different service providers ha noqdaan tusaale ahaan service providers-ka kaasoo u ogolaanaya inay xog isweydaarsadaan iyaga dhexdooda inay xog isweydaarsadaan waa ka u ogolaanaya marka in the Cisco network tusaale ahaan markaynu Cisco kala soo qaadano Cisco PGP-ga waxay u tixgelisaa EGP bay u tixgelisaa ama exterior gateway protocol bay u tixgelisaa waa exterior loogu bixiyay routing protocols kan arki doonaa qaarkood sidaynu koorasyada kale ku sharaxnay router switching-ka haddaad aragtid waa external haddaad aragtidna waa internal marka waa routing protocols-ka ugu caansan kaasi oo ay Cisco u tixgeliso inuu yahay exterior oo xogta isku weydaarsadaan different autonomous numbers sida halka hore soo arkin marka PGP groups baa jira groups macnaheedu waxa weeyaan neighbors PGP-ga jaarka ah waxay established bay sameynayaan ama waxay aasaasayaan routing to exchange routing information xogta iyagu dhexdooda hayaan inay isweydaarsadaan tusaale waxa haystaa router halkan inoo yaala iyo waxa kale oo haysanaa group of routers halkan yaala number of routers halkan yaala kuwaas waxay ku jiraan autonomous number kanina iskiisna wuxuu ku jiraa autonomous number gaar ah marka inay routing protocol isweydaarsadaan macnihiisu waxa weeyaan kan waxa ku xiriirsan xaga dambe kaga xiriirsan kana wixii ku xiriirsan inay dhammaan isku wada yimaadaan ayay kan la wadaagayaan kanina wuxuu la wadaagayaa isaguna network-yadiisa kale xaga dambe kaga xiriirsan kaasa markaasi loo oranayaa routing information bay isweydaarsanayaan okay ka marka ka tago
waxaan imanaynaa markaa iyadoo qodobkii inoo socdo PGP oo maxaa tahay ama border routing gateway routing protocol oo maxaa tahay oo informationkiisii aynu kusii dhex jirno waxaanu leenahay wax loo isticmaala wax loo yaqaano path factor algorithm baa loo isticmaalaa ma xasuusanaa factorka marka physics-ka baran jirnay inuu ahaan jiray shay direction iyo magnitude leh sidaas la mid ah ayuu isaguna algorithm wuxuu isticmaalaa direction path direction buu isticmaalaa path direction kaas wuxuu determine garayaa the best pathka ugu fiican to destination network uu destination network ku gaari karo isagoo xisaabta lagu darsanayo wax loo yaqaano matrix halkan imika ka hadli mayno laakiin mar dhow waxaynu bixin doonaa matrixkaasi wax loo yaqaano attribute ayaynu bixin doonaa attributes 17 qodob ka kooban ayuu isticmaalayo wax ku select garaya okay gadaal baynu ka hadli doonaa taalaha ka warwarin sidoo kale waxa ay ku xiran tahay inay xisaabta wax lagu darsanayaa destinationka sidii loo gaari lahaa in policy lagu configure gareeyay ama configurationka ay ku sameeyaan maxaa loo yaqaanaa network administrators marka PGP haddaan maqalno sidoo kale wuxuu support gareeyaa baan leenahay multipath wadooyin badan ayuu sameeyaa kaasi oo same destination network lagu gaari karo wuxuuna provide gareynayaa isagoo caan ku yahay laba qodob oo ah co-redundancy inay kaltan bilaabaan kaltan waxa weeyaan haddaan routerkaygaasi ku xidhan yahay routerkan ama uu sidoo kale ku xidhan yahay routerkan in case uu kaasi go inuu markiiba kan qaadan karo redundancy baa loo yaqaana ama qodobka labaad oo ah load balancing wax kale ma aha waxa weeyaan loadkay wadaagayaan labadoodu xogtay wadaagayaan ee tusaale ahaan data halkan martay iyo data halkan maraysa inay share gareeyaan resource dabeetana loadka qaadanayaan haddii tusaale ahaan 1 gig ay tahay datadaas kan wuxuu qaadanayaa 500 megabit kaasina 500 megabit buu kala qaadanaya tusaale waa load balancing okay marka one of the key features PGP uu isticmaalo waxa weeyaan waa ability to support route aggregation wax loo yaqaano ama inuu qaato meel ay routed fara badan isku iman karaan ama isku keenaynu yahay where multiple routes kaasoo routes badan are combined with a single ay hal meel iskugu imanayaan more specific routes kaasi oo routed fara badan noqon kara taasi oo yareynaysa sidoo kale size-ka routing-kaaga taasina waxay performance ku sameynaysaa markaasi improving waxay ku sameynaysaa performance-kii wixii guud bay ku sameynaysaa marka waxa weeyaan tusaale ahaan router-kaaga bartan ku yaala hadday routed fara badan oo kale kusoo xidhiidhsan yihiin wuxuu ku sameynayaa si uu loadka looga yareeyo kan wax loo yaqaano markaasi routing table kiisi inuu yareeyo waxaan baran doonaa wax loo yaqaano route summarization waa qodob muhiim ah xagga dambe ku arki doono haddii la hayro